qisadaas hadda waxaynu ka fahmi karnaa qof walbo inaga mid yahay xilli walbo noloshiisa ku sugan yahay yani age walbo tahay standard kasta oo aad taagan tahay life stage kasta oo aad ku nooshahay in problemyada dunida kugu soo hagaagi karaan marka geerida laga yimaado iyadoo geerida hadaad dhimato de ka tagtay dunida inay imaan karaan dhibaatooyin riyooyinkaaga burburiya anytime shil baad geli kartaa anytime wad xanuunsan kartaa dhibaato kale kugu dhici kartaa boqolaal wax oo riyooyinkaagii adduunyada aad ka leedahay burburiya kula kulmi karaa السلام عليكم أدبنا سلام يا دمانتي waxaan أنا ذيك الشيء قصة يرو يعني لا حديد الدون كان ينوها الجميل يمعني يريديسا وتقف كستاو أجي هاي دون ما أنت ينقول والله أنت هايتها ينورش فاسمي جاي كدم بيسوق قفنا لو شيء معي هذا نقول إن الدنيا يرو كوبانو إسكادلان تهذا كنا والله هاي نورش بالله ناي كدم بيس أيه إنه واحد تارجت كما إن ددال هو بدن جلنا إنه تموح كسمينه inagoo tii kale ee rasmiga ahayd ee loo laabanay gabihaanba ilaaweyna ma xumayna tan ku dadaasho wax ka sameeyso hada tan wax wanaagsan meel fiican ka gaadho dhibaato ma laha laakiin mar walba qorshaha ku darso in noloshii aakhiro ee intan ka balaarnayda ay sugayso aan u baahanahay taana inaan wax ka qabsano yani si inuu tan ugu dadaalno inta kale ugu dadaalo waxa jira qaacidooyin caadi ah oo nolosheena wada marto waxaad moodaa in la inoo dajiyaba waxa dhacayso qofku uu dhalanaya uu koraya markuu barbaaro kolkaaba iskuul baa la geynaya waxa nasiib la ka dugsi quraan lagu soo horeysiyo laakiin majority waxa dhici karta in iskuulka la geeyo iskuulkii marka aad dhamayso aad primary dhamayso dugsi dhaxaad galaysaa hoose dhexe markaad ka soo gudubtan waxaad galaysaa dugsi sare dugsiga sare markaad soo dhamayso hamigaagu wuxuu yahay inaad imtixaanaad ka meel fiican ka gasho ditnaad jaamacad wanaagsan raadsato wadiga soo dhameeyay wadiga jaamacadii kale عليك كرتين تين همية كلو آخر هذا فعيا الله سيدنا القرآن كحفظ ذا كله سيدنا الدين تمل في عنك قاد روح في عنك برته كله لكن أتكلم مشغول يسوع حاوشان هذا أتكوشرته ودي جالس يدي مركز سجد رجع رمي يسوع فضيت بعد جد كليو وحد عليك كرتين هذا وقت وهش الدين تهذا تكوسي براته تتودي جات عادي بلاوي عادي مركز بلدنا مشغول كله أنت بيكسي بلادن تهاي حاوش أنت هذا بيد واتن كرسي جود بلادتي تتنوات هم يجا يقولون غدا عادي سفي عنو رمي امتحانات كمية في عنك قلب deetana maxay radaan si aad u guuleysato way jaamacadii dhameysay imtixaanaadka meel fiican ka gashay hamigaaga ugu weyn markaa wuxuu noqonayaa inaad shaqo wanaagsan hesho inaad magac fiican bulshada ku dhex yeelato inaad sumcad sameyso waxaas aad ku fikiraysaa intaas sida hadana ula daala dhacaysa ula halgamayso haduu Ilaahay ku siiyaba waxa dhacaysa hadana inaad noloshaada dib u dhisto guuriyo caruuriyo aad wax bilowdo way kuwa markaad ka gudubtana hadana still chance balida iyaga kursiintoodii galaysaa korsiintiisa ugu gudo jirto way koraan dib hadana processkii adigu aad martaad mid kasto badkaaga lamid la raadsanaysa yani inuu wax barto dugsi sare hoose dhexe jaamacad ka saarto inta markuu dhameeyay inaad shaqo geyso maba jirto goor aad adigu nasanaysa tahmiyadii aad yaraantaadi kula soo korayna goor aad qabanaysa maba jirtaba hadaba qaacidaasi waa qaacidada yani nolosheena basically qof kasto inaga mid ah oo maro dariiqaas inuu iska daba marnaa way yartahay inta kale xataa dhamaanteen halkaas aynu wada marnaa hadaba qisada idinka sheekeynaya waxay tahay intaas marka laga yimaado tusaalaha kooban ee dunida ka wada arkayno waxa jira nin dhalinyaro ah ninka dhalinyarada ahi wuxuu qabay isaga laftirkiisu fikirada iyo ra'yiyadaasi yani dunida oo dhan ay qabto inuu intan process-kan uu wada maro dugsi buu dhiganayay dugsi wuxuu dhiganayay markaasi sarabo ku jiray waxa hamigiisa ugu weyn inuu maxay dhadaanay imtixaanka meel wanaagsan ka keeno dhibco fiican oo keeno dabeetana hadhow tolo jaamacadu gudbo waxa ku takhasusad yani waxa ku takhasusad qaato takhasuskiisa markuu soo qaatana shaqo fiican oo helo gaari qurux badan ka haysto guri wanaagsan oo ku noolaado waxa soo dhan buu yani isaguna ku fikiray hadaba waxaad ogaataa anytime waqtigaaga kamid ah inay problemyada adduunyada kula soo darsi karaan ninka dhalinyarada isagoo dugsiga sare baan dhameeyay baa waxa dhacay xanuun maskaxda kaga soo booda xanuunkii kolkiiba waa la cararay dhakhtarkan gee dawaba loo mahayo inankii waa xanuunkii yani ku sii baahaya marka dambaysa waa ku sii baahaya ilaa marka dambe noqday nin dhalinyaro oo dhaliyaala oo xanuunkii ka tambatay dabadeetana oo halkaasi hamiyadiisii aw sii wadi lahaa wax kasto oo yani suureysanay noloshiisa kamid ay ku burburaan taasi waa taa qisadaas hadda waxaynu ka fahmi karnaa qof walbo inaga mid yahay xilli walbo noloshiisa ku sugan yahay
يعني age walba oo tahay standard kasta oo aad taagan tahay life stage kasta oo aad ku nooshahay in problemyada dunida kugu soo hagaagi karaan marka geerida laga yimaado iyadoo geerida hadaad dhimato de ka tagtay dunida inay imaan karaan dhibaatooyin riyooyinkaaga burburiya anytime shil baad geli kartaa anytime wad xanuunsan kartaa dhibaato kale kugu dhici kartaa boqolaal wax oo riyooyinkaaga adduunyada aad ka leedahay burburiya kula kulmi kara tiro malaha inta qof ee hami ay lahaayeen oo ay ku dadaalayeen iyagoo aan ka gungaarin dhaxda dhibaato arinka hor istaagto oo weyni ay ku timaado hadaba adiga maxaa kula gudboon tan ugu muhiimsan ee dib kasta oo kugu dhacaan ka joojinayni waana akhrada oo shaqaysato marka mar walba aan isku dayno inuu adduunkiina wadna bal inaynu inta badan xooga saarno nolosha tan xigta noocay noqon doonto sida way kaan doonto halka markaynu ka tagno maxaa xigi doona taa xooga saar dibta hadii ay kugu timaadana ku sawir wax walba oo dhibaato kula soo gudboonaada qadar ilaahay ka soo qaad tasoo soo gabagabeynaya qisadaasina maalin dhawid buu ka akhristay ka hadlayay adduunyada yacni nolosha dunida iyo sida uu micna gaaban tahay ka hadlayay baan ka akhristay tan waxaan jeclaystay inaan la wadaago aad baad mahadsantiin